haddaba Cabdiraxmaan oo intaan ka bixin qaybta kubadda barnaamijka waxaa jirta erayaal maasooyinkooda ku lahayd saldhigii dalkeeniyo soo abaaray goobtii sumadii jacaylkii haysaga ku noolay bal inanta haysaga iyo sumadii jacaylkii saldhigyadii adoo naga dabageynay in ku jaleecaya maasooyinkii hore nashaaday horta lagaa lug bixi maayo inaad meel aanan filayn baa tooshka ku qabatay balse waa qasab inaynu bulshada halkaa bal u yar iftiimino saldhigii dalkeeniyo soo abaaray goobtii sumadii jacaylkii yahan asigal ku noolayd de saldhiga dalkeena oo la garanayo waa Hargeysa marka humaagaan sawiraya inaan Hargeysa ka soo galay xaggan Salaxli ka soo galay magaalada goor habeenimo ah soo galay waa humaaga aan sawiraya araartii maansada hore hana sagal bay noqotay hana sagal alban khaas ah bay suugaanteeda ku leedahay oo la yiraahdo sumad jacayl hana sagal marka waqtigaan ardayga ahaan dugsiga sare dhiganayay inaan isku arday ahayn oo xiriir jacayl oo qoto dheer inkastoo xiriirkaasi aanu sidii aanu doonaynay aanu noqon xiriirkaasi iyo jacayladaasi bay ahayd intaasi bulshadii adiga way ku filantay soo طبعا ها وقتها قيمت البدء برنامج عبد الرحمن وحلال هذا البن هيستك كسمة شعيل هيستك كوباد كنت وحلال صوت شعيل كوي مهلي هرمين هنسجل بحر للان بل صوت شعيل كوي مهلي قرتي على هيستا سو صارتي ما رسي سميك وكلفين تبع نشاطي ولي وقت سي فرسا waxa la yiraahdaa Soomaalida waxa ku mahmaadaa ninka waranka kugu ganay iyo ninka kugu lilijiyay iyo ma darano ninka kugu lilijiyay baa waran horaan ugu lilijisay balse waynu isku soconaynaa Allahumma salli ala Muhammad heestaasi sumad jacayl ama albankaasi heestan la dhaaso jacaylku meelun waa heestii ugu horeysay albanka heestani waa hees gudbinaysa arday fasal fadhiya barihiis xisaab waliba loogu jiro sida oo kale qofkii ardayda hay isticmaalana ay fasalka fadhido dareen aynkaasi way gudbinaysaa moogta xiisad tuushna weeyaan tuushinka waxa la garan ardayda fanfoorka wala soo celiya marka tuushinka waxa laga yaabaa arday fasal kala duwan inay hool dhan ku dhigtaan marka qisada xilliga maalintu saasay ahayd marka macalinka waan soo habsaamo su'aal xisaab weydiiyay xisaabtana waad ogtahay halkaynu ka joogno bulshadeenu adoo xisaabtii baan minus iyo balaasti baan isdhaafiyo meel balaas baan minus oo marka natiijo kala soo baxsay moogta marka ana show maan joogine heblaayaan la hayay moogta la galaaskii fadhiday marka waxa tiri jabadkii aqoontii anigoo ku jira joon soo jacaylku ima helin 26 joon waa dugsigayga sare jabadkii aqoontii anigoo ku jira joon soo jacaylku ima helin soo ima jalaafayn jabba waa jabkiisa soo jeeyay muu dhigin jabaad badan iyo xeerkii jibaarada anna waan jibaysnay ma jawaab karaya inahaasa kamid ahaa heestaasi moogta dayagoo heesaabay bulshada kulay albanka soo gaari doonaan laakiin intaasaan ka taabanaynaa heestaas soo jacaylku ima helin heesta labaad iyada waxa lagu magacdartay albanka dhan sumad jacayl baa leedahay bal heestaasi iyadana heestani waa heestii labaad oo heesta qaatay magaca albanka waxay ka waramaysaa xaalad kamid ah xaaladihii jacaylkaas marxaladu maray moogta waxay tiri Soomaali idilkood garanaysaa waa tahay nin waliba baa lahayd mid uu ka helo cambara lul ku sheegay sama marka hadda xabadayda baan meel yar geeyay moogta oo darajooyin siinaya waxa tiri Soomaali idilkood midii ugu sareysay hablahana u sidatay sanbabada rugtoodii halbowlaha adaa suran sumadii jacaylkaay saymihii kalkacalkaay sidigtii naftayda ay ku sagsaagi maayay sahankaygu waa adi subaxdii timaadiyo saaci la joogaba adigaan ku sugayaa Allah ay sukeensimo haniyay sareedoy samir baan ku noolahay marna kuma saluugina saba kala hamarna wacadkii hasaydin heestana intaasi bayaduna ahayd laakiin waxaan bulshada xasuusin doonaa albanka sumad jacayl heesa kamida inay dhawaan soo gaari doonaan sida heesta sumad jacayl heesta baab heesta galiiliyo way tuman yihiin wali codkan baananu qaban albankaasina waynu